بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعده كسمها رئيس وزراء أنا رئيس وزراء كحجان وزير كجناعسي ورشدها رئيس وزراء كحجان هذا وزير كرمها جودها وزير كعاصماتك تليها عيد مدى حوجة تليها عيد مدى بوليسك أقاسمها جود وزارة رمها جودها أقاسمها نبت سجدة تلي حجانة أما باندولياشا سراياشا سراكيش إسراق الحجانة وضياشا دغنك يا علماء دينك خيار تماشى فلذا حل بانذا waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib farxad weyn noo ta maanta inaan afgooy joogno oo geedkii 2006 aan maanta hoos joogno waa ilaahay mahadiis intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan mahad celiyo ciidamada qalabka sida iyo ciidamada AMISOM dadaalka kan kala go'an lahayn ay u galeen shacabka Soomaaliyeed inay ka kor qaadaan dulligii iyo argagixisadii waxaan rabaa inaan ugu hambaleeyo ciidamada qalabka sida ciidamada AMISOM guushaas sidaas oo kale ugu hambaleeyo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu hambaleeyo dadweynaha degmada Afgooye iyo dadweynaha gobolka Shabeellada Hoose intaas markii aan ka gudbo inaan maanta idin la joogno farxad weyn noo tahay waxaan ognahay inaad dhibaato badan ku qabteen joogitaanka alqaacida iyo jujuubkooda iyo cabsi galintooda iyo argagaxintooda iyo dilkooga inaad ku qabteen dhibaato fara badan dawladuna intaas waxay ku jirtay dadaal sidii ay idinkaga dul qaadi lahayd sida aad wada ogtihiin waxa abaabul loogu jiray qaranka Soomaaliyeed in dib loo soo nooleeyo muassasaadka dawladda in la xoojiyo ciidamadii qalabka sida in la dhiso si awood loogu helo in shacabka Soomaaliyeed loogu adeego oo ay u helaan xurriyad iyo nabadgelyo falillahi alhamdu maanta qayb fara badan ayaa noo suura gashay kaliya ma aha magaalada Afgooy inay xoreysan tahay gobollo badan ayaa la xoreeyay oo ay ka socdaan xoreyntu waxaan rajaynaynaa xilliga soo socda inaan ku guuleysan doono in dalka Soomaaliya dhamaantiis la xoreeyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka Soomaaliyeed ee gacanta ka geystay hiil iyo hooba gacanta ka geystay inaan u mahad celiyo sidaas oo kale dadka saaxiibada ah ama ajaanibta ah ee gacanta ka geystay ama kharash ku bixiyay ama wiilashooda keenay ugu horeeyaan ciidamada AMISOM inaan uga mahad celiyo intaas markii aan ka gudbo dawlad marka la yiraahdo waa mas'uuliyad la wada leeyahay waa mas'uuliyad shacabka iyo dawladda u dhaxaysa oo u baahan in laga wada shaqeeyo waxaana ka dhawaajiseen inaad baahi u qabtiin nabadgelyo inaad baahi u qabtiin inaad heshiin kalsooni inaad baahi u qabtiin inaad heshiin horumar dawladdu waxay ballan qaadaysaa dhinaceeda waxa la wixii ku aadan arrintaas oo karaankeeda inaysan ka gaabi doonin adinkana waxaan idinka rajaynayaa inaad gacan ka geysan doontiin waxaan shaki iiga jirin al-shabaab iyo al-qaacida inay jabaan fikir ahaan iyo ideology ahaan inay u jabaan sidaas oo kale inay u jabaan ciidan ahaan haddana neefka marka la gowraco waa raftaa marka waxa hadda noo muuqanayo waa rafashadana waxaan rabnaa inaan isla qabanno oo wada togno si ay u nafbaxaan cidii ka soo laabanaysa fikirkaas khaldan ee bulshadeeda u soo laabanaysa ee ummadeeda u soo laabanaysa ee dawladeeda u soo laabanaysa oo ka tanaazulaysa xumaantii iyo cabsi gelintii ummadda Soomaaliyeed iyo diinta islaamka in loo isticmaalo si khaldanna waa soo dhaweynaynaa waxaana ugu yeeraynaa wiilasha iyo gabdhaha la marin habaabiyay war islaamku ma ogola in diinta islaamka wax lagu dulmiyo dadka waa ku dulmiseen waa ku dhibaatayseen diinta islaamka waa diinu samaaxa waa diin dadka midaysa waa diin dadka aan dhibaato gelin oo aan ogolayn qofka muslimka in la argagaxiyo ka soo laabta yaan geedaha hoostooda kanaacadu idinku dilin ha ku baahana geedaha hoostooda fikirkaas khaldan meelna idinma geenaayo Soomaaliya danteedu waxay ku jirtaa dawladnimo dawladuna waxay ogoshahay dawlad wanaag iyo in la ilaaliyo diinta islaamka in lagu dhaqmo in kor loo qaado si ku haboon ummadda Soomaaliyeed iyo taariikhdeeda wanaagsan iyo himilooyinka fiican oo higsanayso ummadda Soomaaliyeed intaas haddii aan ka gudbo sida ragga iga horeeyay wasiiradu ay ka dhawaajiyeen
waxay fursad u noqotay magaalada Afgooye xamar markii la xureeyay magaaladii koowaad oo la xureeyay noqoto waana istaahisha arintaas maadaama ay tahay magaalo istaraatiiji ah magaalo wax soo saar magaalo weligeedba door fiican ku lahayd siyaasadda waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo ummadda Soomaaliyeed 20 sano waxay soo mareen dhibaatooyin fara badan waxay soo mareen mataqaanaa hogaamiye kooxeedyo waxay soo mareen nabadgelyo darro baahsan waxay soo mareen al-shabaab iyo al-qaacida maanta waxaa noo iftiimay dawladnimo haddii shalay cadaalad darro tabanayseen iyo inaan la idin siin xuquuqdii aad leedeen dawladdu waxay diyaar u tahay inay xuquuqdiina idin siiso waxay diyaar u tahay waxa aad mudan tihiin inay idin gaarsiiso waxa la idinka rabaa gacan buuxda inaad kula shaqaysiin dawladdeena baqdin aysan idin gelin sida ninkii sheekh ahay oo ka dhawaajiyay naftaana ilaaha waqtigeeda qoray al-shabaabna waa jabeen qofkii cid gaar ah oo aan waqtigeedu gorin oo ay nafka qaadi karaan ma jirto runtii qof muslima oo aan dhibaato geysan qofkii dilana adduunkiisa aakhiradiisa ku ciyaaray waxaan rabnaa marka hadda wixii ka dambeeya magaaladii nabadeedii nadaafadeedii midaynteedii horumarkeedii in loo soo jeesto dhaawacina gaaray 20 sano waxaan rabnaa degdeg inaan uga bogsano taasna waxay ku imaan kartaa inaan wada shaqeyno oo gacmaha isqabsano oo dadka guryaha ku jira ama meelaha ku dhuumanaya duurka ee nabadda ka soo horjeeda gacanta soo qabatiin aad iyo aad aan ugu faraxsanahay General Guudle maanta inaan arko waxa uu ahaa ninkii ugu horeeyay taliyaha ciidanka lugta aan u magacaabnay waxa loogu magacaabana waxay ahayd kartidiisa iyo aqoontiisa laakiin ma taqaana caafimaad darro darteeda yani waa adkaata arintaasina uu qabto qiirada wanaagsan iyo qiimiga uu hayo ciidamada qalabka sidana aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u sheego wiilasha mid dambi leh iyo mid aan dambi lahaynba in la soo xiraa dhici karto ujeedaduna ma aha in la dhibaataynayo kaliya waxa waaye in la hubiyo nabadda bulshada sida saraakiisha ciidamadu ay noo sheegeen dadka la soo qabtay dadna tuhma ku jirta dadna waxa lagu yani markhaati iyo cadeymaad jira marka waxa lagu guda jira kala saaridii wax dhibaato aan intay xiran yihiin kuma dhici doonaan ilaahay idankiisa qofkii aan dambi lahayn waa la sii day doonaa laakiin annaga haddaan Soomaali nahay dadka in la xiro ma jeclin taasna maxay keentay in al-qaacida iyo al-shabaab ay fursad helaan marka intuu dadkii dhibaatay lahaa oo dhig muslim oo daadi lahay inaan ogolaano dadkii in mataqaana su'aal la weydiiyo waa laga maarmaan marka aan ogolaano waa kala dambeyntii waa dawladnimadii waa amnigii oo la ilaaliyo in qofkii la tuhmo la yiraahdo waxa loo baahan yahay in su'aal lagu weydiiyo oo xurriyadaada la qaado ilaa waqti kooban haddii markaas ay cadaato inuusan dambi lahayn la sii daayo hadduu dambi leeyahayna sharciga la mariyo intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa ciidamada qalabka sida waxay soo mareen maraaxil kala duwan waxa la socotiin xilligii dawladdan oo jirtay waxa lagu bixiyay dadaal fara badan maantana waxay soo gaareen meel fiican magaalada Afgooye la qabta maanta inaan la sheegi karin qof la dhacay iyo qof la dhibaateeyay ilaaha ku mahadsan kuma waa uga mahad celinayna ciidamada qalabka sida iyo saraakiishooda arintaasuna waxay ku timid dadaal iyo xilkasnimo iyo ciidanka laftigooda maanta inay gartaan waajibaad ka saaran iyo waxa laga filaayo inay gartaan maanta inay waxay u adeegayaan shacabka Soomaaliyeed inay yihiin aan marna laga filaynin inay dhibaato sameeyaan waxaan shaki ku jirin ciidan cid khalad sameeya lama waayo laakiin muhiimaddu waxay tahay cid khalad ka sameeysa inay saraakiisha u diyaarsan yihiin maxkamadda qalabka sida in maxkamadda la geeyo waayii hore waqti dheer ay qaado jirtay hadda kadib waxay ahaa doontaa maadaama ciidanku la rabo hore inuu u sii socdo dambiga meesha uu ku galay askariga in maxkamadda lagu saaro laguna fuliyo oo aan xabsi la aadin sidaas ay ahaa doontaa sababtuna waxa waaye inaan ilaalino amniga shacabkeena iyo karaamadiisa inaan ilaalino karaamada ciidanka iyo sumcadiisa inaan ilaalino ayaa laga maarmaan ah taas ayaana hubaa inay mataqaana ciidanka u naqo doonto wanaaga iyo horumarka maanta ay ku tilaabsadeen in la ilaaliyo taas ay ku imaan kartaa Afgooye markale aad iyo aad u mahadsantihiin degmada Afgooye waxaa lagu guuleystay
إن لا بسوا دقمدي قدوميه اللي مقعبه قدومي كحيانك وحانو ملاينا هرو جوجي وواجب مهدي عيدك أمس وما لصعد مدن هي وأمهات علينا هنا يعني شغلة في عنا وقبتي ujeedadu ma aha in mataqaana loo begi waayey laakiin waxaan rabnaa wixii inay buuxaan oo gudoomiyihii uu joogo gudoomiye ku-xigeenka uu joogo mas'uuliyiinta kalena ay joogaan wasaaradda arrimaha gudaha u daynaynaa inay soo dhamaystirto shaqooyinkii kale haddii aad tabasho qabtiin wasaaradda u gudbiya dawladda oo dhan waxay diyaar idin tahay wixii ku saabsan maamulka oo aad wax ka qabtiin inaad sheegatiin waxaan idinka filayno waa wada shaqayn waxa loo shaqaynayana waa adinka waxa loo shaqaynaa waa danta ummadda Soomaaliyeed waxa loo shaqaynaa waa dawladnimada Soomaaliya waxaan rabaa inaan ugu baaqo meelay joogaan ba ayagana inay garab siiyaan gacan siiyaan dawladnimada maanta waa soo aragnay Allahu akbar wa dadalina Allah يبارك فيك waxa laga filayo ummadda Soomaaliyeed inay qarannimadeeda dhisato qurbo iyo qaxooti iyo dhibaato waa laga soo dhargay waxaan nagala rabaa inaan u soo jeesano dawladnimadeena iyo qarannimadeena gacmaha isqabsano qabyaalad meel iska dhigno waxaan ugu filan oo laga dhargi karaa waa dawladnimo taas inaan gacanta mataqaana aan gacan ka wada geysano degmada ama gobolka aan dhaho Shabeellada hoosana maadaama lagu socdo xureyntiisii waxaan ka filaynaa dadka gobolka inay gacan siiyaan ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha ciidamada qalabka sidana waxay gudaha doonaan insha Allah waajibkoodii waxaan idin rajaynaynaa guul iyo horumar aad iyo aad u mahadsantiin. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.